بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حلقته كان كهري وحين وقصوا هذا لنا صوماليا محا كهر تاجن دولة نمدا حلقتنا وحين وجهد لنا قضب كلا أو عصب بس قضب كاس إنتان وجود بين وحين وكشاكيننا قصة كدبنا إيديك أيا فهمي دونا قصتني وحي تهاي شركة أيا جرتي وحي أبها تبالي ريش قالوا كدب شقده وحا إسكسو ديوان جلية صدح قف أيا إسكسو ديوان جلية saddexdii qof iska soo diiwaan galiyay waxay ahaayeen saddex nin kadibna waxa loo gudbiyay maamulihii shirkadda si uu la yeesho muqaabala kadib maamulihii waxa uu weydiiyay hal su'aal oo isku mid ah su'aashaasi waxay ahayd laba lagu daray shan ma ahan kii koobaad ayaa jawaabay waxa uu yiri laba lagu daray waa shan ha kii labaad ayaa jawaabay waxa uu yiri ha waa hadii lagu daro hal maamule kii saddexaad ayaa yiri maya waa qalad waa afar kadib waxa maamulihii waxa uu ku yiri hadaba iska baxa faylashiina way yaalan waa inuu idin soo jawaabi doonaa maalintii ku xigtay oo loo soo jawaabay waxa loo yeeray un kaliya labadii nin ee u horeysay labadii nin markii shaqadii ay yimaadeen waxay yiraahdeen saaxiibkeen sababta lagu yeeri waayay maxay tahay waxay ula tageen maamulka ku xigeenkii qodob arintii oo ay qabsatay ay ka sheekeynayeen maamulka ku xigeenkii ayaa yiri ii fadhiya maamulaha ayaan u tagayaa oo aan soo weydiinayaa sababta uu kii saddexaad uu u aqbali waayay maamulka ku xigeenkii markii maamulihii u tagay maamulihii waxa uu ugu jawaabay kan koobaadi waxa uu ahaa beenaale asaguna uu is og yahay inuu beenaale yahay oo waa uu shaqaysanaya weeyaan macnaha kan labaadina waa nin caqli badan laakiinse caqligiisa nagula shaqaysanaya oo aanan naga hor imanaynin ka saddexaadina waxa uu yiri waa runlow karti badan oo aan lala shaqaysan karin noocaasina nooca aynu doonayno ma ahan balse labada kale waa nooca aynu raadinayno maamulihii waxa uu ku soo jeestay maamulka ku xigeenkii markaas waxa uu weydiiyay laba lagu daray shan ma ahan maamulka ku xigeenkii ayaa yiri maamule anigu hadalkaaga fasiridiisa waan ka caajisay dadka cuqalada iyo cilmiga la isugu darayna hadaladooda inaan fasiro aniga ma aanan gaarin maamulihii ayaa intuu dhowla cadeeyay waxa uu yiri tanina waa munaafiqnimo oo ayaduna waa nooca aynu raadinayno qisadan waxaynu uga gollenahay waxa la yiraahdo aynu wada shaqaysano in dawladda Soomaaliyeed ay ku shaqayso min la asaasay ilaa iyo waqtigan waxaynu ula soconnaa waxaynu dulucdeena waxay tahay waxa loo yaqaano al-kafaa'a inayna hayso waxa la yiraahdo kafaa'a la'aan marka aynu wax dooranayno dad shaqadan karti u leh ama qaban kara ama cilmigeeda leh aysan marnaba aysan soo marin lidalika mar waliba dawladda Soomaaliyeed ay fashilmaysay hadii ayna soo mareenna ay yarayd Abdul Qadir Arama buugiisa hadimadii gumaysiga cutubka 8aad markuu uga hadlayay jabkii dhacay dagaalkii 77kii safxadda kontonaad waxa uu asagoo qodobkan ka hadlaya waxa uu yiri Soomaaliya iyo Itoobiya waligood iyo allood markay is haysteen Itoobiya oo fac weyn ahayd Soomaaliya waxyaabaha waligeed uga adkaatay waxaad kamid ahayd waxa loo yaqaan buu leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda shirki ka dhacay Addis Ababa 1963 ee lagu aasaasay munadamatul wahda al-afriqiya iyo shirki xigay ee Qaahira ka dhacay asaguna 64 Qaahira ka dhacay waxa uu yiri labada shirba waxa lagu go'aamiyay Soomaaliya in ay xuduudihii uga tagay gumaystuhu lagu ekeeyo sababtuna waxay ahayd buu yiri ay ku dhacday sidaasi waayo Soomaaliya waxay weysay buu yiri diblomaasiyiin karti u yeelan waayay inay ergadii shirarka ka soo qayb gashay ka dhaadhiciyaan qoomiyadda Soomaalidu waxay ku doodayso iyo kala qoqobkii uga tagay gumaystuhu qodobka la yiraahdo kafaa'adana waa qodob muhiim ah ummad waliba oo marka u baahan inay wax qabsato ama ha noqoto dawlad ama ha noqoto shirkad ama ha noqoto ay shay oo shaqo loo baahan yahay hadii aanan kafaa'adeeda lahayn in lagu guuleysto ma dhacdo waayo xataa hadaan u laabano 1400 oo sano ka hor gaaladii Quraysheed markii Maka ay joogeen muslimiintu ay soo baxday muslimiintu أول هجرة حبشة أيها دعضي أو واحد ويجرودين حبشة مركي أي أباهدين قال هذا قريش إن الدب سعليان تتكاس واحد أباهدين واحد لو يقان ما أنت السياسة الخارجية واحد أباهدين سيدو كله واحد لغة العصر لو يقان الدبلوماسيين سيداس أي أباهدين واحد راديين ضد كفاءة له مركز سويديان واحد يرادين ضد كفاءة لأين أباهنا لذلك واحد دورتين كله يقانو عمر ابن العاص لماذا وحوها داهية العرب عمر بن العاص مركي وتجي حبشة مركو تجينا هذا الذي أقدمه بقرك حبشة وحي أهاين هذا الله هيرك يقصر الدبلوماسية ده بل إلهي جوشيسا
iyo inuu ayiday muslimiinta iyo inuu ku sharaxay boqorkii xabashida islaamka ayuu ku badbaadiyey. sidaas la mid ah haddii aynu soo talowno casrigaas abubakar iyo cumar haddaynu u nimaano xilligii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhintay abubakar uu la wareegay xilka waxaa loo yaqaano wasiirka gaashaaniga ama hogaamiyihii ciidamada muslimiinta waxaa laga dhigay khaalid markii laga dhigay cumar ibn al-khadaab oo ahaa ku-xigeenkii abubakar aad iyo aad ayuu u mucaaraday. sababta u mucaaradsanaa wax kale ma ahayna waxa uu ku haystay waxa loo yaqaano kafaa. sababtoo ah abubakar cumar waxa uu arkayay khaalid inuu kafaa leeyahay sax laakiinse ciidamada inuu ku dhex jiro ninka kafaa badan lidaalika qof kale ka kafaa badan inuu hogaamiyo waa qalad. waxa uu yidhi waxaa ku dhex jira ummadan amiinu hadihi lumma lidaalika in aad isaga ka sarraysiiso ayaa loo baahan yahay abubakar isaguna iska eexasho kama ahayna isaguna waxa uu arkayay marka la tago amiinu hadihi lumma waa saxiix laakiinse marka la tago hogaaminta dagaalka iyo in gaalada la jabiyo dagaalkana lagu guuleysto khaalid ayaa kaga sarreeya buu yidhi. marka waxa uu yidhi waa sida uu khaalid uu sheegay wa anaatu lqidati wa wuthuub alasad marka lidaalika waa in khaalid loo dhiibaa oo khaalid sababtoo waxa uu yidhi waa hogaamiye dagaal sidoo kalena karti u leh fursadda inuu bilaxdatin uga faa'iideysto ilaa iyo xataa inta uusan soo islaaminna waad arkaysaan dagaalkii uxud fursad yar ayuu muslimiinta uga faa'iideystay kadibna muslimiinta ku jabiyey ridwaan ullahi calayhim ajmaciin. marka shayga kafaa'ada la yiraahdo ayaa naga maqan kow oo aynu u baahannahay inaynu dib u saxno si aynu u helno wacyiga ummadana kor loo qaado. hadda maalan tusaale ahaan oo kale waxaa arkaysaa maalan marka laga sheekeynayo shacabka weynuhu markay ka sheekeynayaan ama sida baahsanba dadka isla shaqeynayay dowladda ka wada shaqeey maalan isma qabtaan oo kale maxaysan isku qabanayna hal la isqabto haddii la raba laakiinse ummaddu markay kafaa'a leedahay in la iskula shaqeeyo ma ahan aynu wada shaqaysano sidii qisadii aynu soo sheegnay ay ahayd beenaalaha iyo munaafiqnimada iyo ninka caqliga lahaa isaguba yiri waan kula shaqaysanaya si kasta ahaataba. marka waxaan u baahanahay kafaa'a qisada iyo xalqada guud ahaan inaad fahanteen baan rajeynaya. aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.